munaasabadan waxaa ka soo qayb galay mas'uuliyiin ay ka mid yihiin la taliyaha arrimaha haweenka ee madaxweynaha Somaliland duqa degmadan Boorama oo ay weheliyaan gudoomiyaasha 5 degmo oo hoostaga gobolka Nowdal saraakiisha amniga hogaamiyaasha dhaqanka ururka haweenka Naw ee gobolka Nowdal qurbajoog iyo marti sharaf aad u fara badan gudoomiyaha hore ee gobolka Nowdal mudane Axmed Xadi Sidci oo munaasabadan ka hadlay ayaa waxa uu ka waramay waxqabadkii uu ka qabtay gobolkan muddadii uu xilkan hayay halka sidoo kalena uu mahadnaqay waxgaradka iyo shaqaalaha gobolka sidii habooneed oo ay ula shaqeeyeen muddadii uu xilkan gobolkan ka hayay oo ka noqonayo soo shaqadeeyay adoofiyeen horumar badan baa ka gaarsiiyay waxaan ninkii u horeeyay fooqii u horeeyay ee gobolkan aasaasan maanta waxay magaaladu leedahay 200 kamishakii baan ka doonayaa sidoo kale gudoomiyaha cusub ee gobolkan mudane Cabdu Axmed Aayir oo isna hadal ka jeediyay madashan ayaa sheegay inuu ka shaqeyn doono mideynta dadweynaha gobolka Awdal kana howlgali doono si ambaqaadka barnaamijyada dhinaca horumarinta ee gobolkan ka socda waxa uuna ka dalbaday howlwadeenada gobolka inay sameeyaan wada shaqeyntii loo baahnaa in yar ka yiraahdo gobolka Awdal wuxuu nabadda halkay nabaddu ka soo kontay Awdal وهالكي دولة السومالي لا تقول سنتين أولا وهالكي البحر ماذا هي أقوم أي سلك كويسي السومالي لا أرجونا تعدموا كل هال أن هاي كان قايمين لكن سودوبلان مدين أولا أنكون جاميو أي بتشوفنا كعد سريع إلى سوق الجربة la taliyaha arrimaha haweenka ee madaxweynaha Somaliland Marwo Amaal Xaaji Axmed Miisaan oo iyaduna munaasabadan xil wareejinta ahayd hadal ka jeedisay ayaa ku nuuxnuuxsatay siyaasadda isku bedelida gudoomiyaasha gobolada Somaliland iyo faa'iidada isdhexgalka bulshadu ay u leedahay waxa dhacay isbedel aynaan hore arag muddadii dhowr iyo 20 sano ahayd ee xilka ee Somaliland go'aan isku taagtay waxay ognahay in gobol walba ninkii ka soo dhashay uu loo dhigi jiray gudoomiye oo la yaqaan carruurta yaqaanaan iyo dumarka yaqaanaan markii tala badan iyo la tashi fara badan laga galay waxa la go'aansaday in la isku bedelo barasaabyada gobolada uu madaxweynuhu go'aanka ay taladaasi uu ku dhaqaaqay taasina waxa ay faa'iido u tahay bulshada isdhexgalkeeda inay bulshadu isdhexgalato ay isdhexgalaan isbartaan ninka gobolka jooga ee ku dhashay ceerigaabo wax ka soo arko ee aan weli dhankaada u dhaafin ceerigaabo jooga uu saydactado waa waxa la soo dhaweynayo aadna ugu faraxsanahay wasiir ku-xigeenka maamulka gobolada iyo degmooyinka ee wasaaradda arrimaha gudaha Somaliland mudane Cusmaan Garaad Soofe oo ka hadlay munaasabadan xil wareejinta ahayd ayaa sheegay in maamulka gobolka uu yahay mas'uuliyad balaaran isla markaana ay lagama maarmaan tahay inuu gacan ka helo bulshada gobolka si uu u guto waajibaadkiisa kaga aadan horumarinta xaaladaha arrimaha bulshada ee gobolka gudoomiyaha cusub ee hawsha ku fudeeyo ay dhamaantii faataxada oo ugu marro halkii la kala wareegeen maanta ay bishu ay tahay 14 bishii labaad 2013 si kastaba haatee munaasabadan oo ahayd mid si weyn loo soo agaasimay ayaa noqonaysa tii ugu horeysay xil wareejin ka dhacda meel ka baxsan xafiiska maamulka gobolka Awdal taas oo aan horay ugu dhicin intii gudoomiyenimo ee soo martay xafiiskan waxaana xusid mudan in gudoomiyaha cusub ee gobolka Awdal Cabdu Axmed Aayir uu noqonayo gudoomiyihii afraad ee xilkan ka qabta gobolkan tan iyo intii xisbiga kulmiye uu ku guuleystay talada dalkan wuxuuna horay u soo maamuli jiray gobolka Togdheer oo isku shaandhayn madaxweyne Siilaanya dhawaan sameeyay loo soo dalay gobolka Awdal waxayna bulshada reer Awdal dhowrayaan sida uu wax ugu qabto baahiyo badan oo gobolkan xilligan ka taagan Cabdi Fataax Axmed Hadwanaag News magaalada Boorama